السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتكم حرن جنال كيغا مركل السودة وهذا أدي هذا أقوم هسنتين داوشة ملكستو الجوكتان إيوليبا سيكستا وادي داونيسان مانتوان قصلية arrin war muhiima oo dadka Soomaaliyeed kuwa Mareykanka jooga iyo sidoo kale kuwa kale ee qaxootiyada ama caalamka meelo kala duwan jooga qosaynaya oo maanta dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqday waa war kulul warkan wali xitaa ma uusan qaboobin arrin horay aan idinku sheegay oo ahayd in sponsorkii la furayo in dadka Mareykanka ah qofku ha haysto dhalasho citizen ha noqdo passport haysto ama green card haysto permanent resident ha ahado deganaansho rasmi ah oo dadka qaaska ee Mareykanka ay sponsor u diri karaan dadka qaxootiga ay ku nool guud ahaan caalamka arintaasi ayaan rabaa inaan maanta aan idin wadaago war farxad leh hadii uu ku soo gaaro warkan si gaarsi dadka kale ee arintan daneynaya reer Boofis maanta arintan waa ay anfacaysaa waa tahay hadaba wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Anthony Blinken ayaa maanta waxa uu xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka uga dhawaaqay barnaamijkan cusub oo private sponsorship ka ah oo dadka Mareykanka ah ay dadka kale ee guud ahaan caalamka kala jooga ee qaxootiga ay kafaala qaadi karaan sponsorku waa macnaha qofkan in uu kafaala qaado barnaamijkan waxa la yiraahdaa the Welcome Corps waxa loo soo gaabiyaa CORB website ayuu leeyahay www.welcomecorps.org halkaasi ayaad ka eegi kartaa barnaamijkan hadaba muxuu yahay marka barnaamijkan waa barnaamij dawladda Mareykanku ay tijaabisay labadii sano ee la soo dhaafay 2021 iyo 2022 midka koobaad wuxuu ahaa barnaamijkii loogu magac daray Welcome Allies oo dadkii Afghanistan laga soo daabulay lagu soo dhaweeyay Mareykanka oo dadka Mareykanka ay kafaala qaadayeen ilaa iyo 80,000 oo dadka reer Afghanistan ah ayaa la soo dhaweeyay barnaamijkaasi mid successful ayuu noqday waxa ku xigay dagaalka Ukraine markii uu dilaacay hadda sanad bisha soo socota 2020keeda ayuu sanad dirsan doonaa in dawladda Mareykanku haddana ay barnaamij kala sameysay oo la yiraahdo United for Ukraine oo ilaa iyo 100,000 oo qaxooti ah dadka Mareykanka oo reer Ukraine ay soo dhaweeyeen barnaamijkaas isagana successful ayuu noqday marka dawladda Mareykanku waxay ka fikirtay hadaba labadan barnaamij oo la tijaabiyay maadaama ay successful noqdeen ma lagu tijaabiyo barnaamijkan guud ahaan qaxootiga caalamka arintan marka wasaaradda arrimaha dibadda hore ayaan idinku sheegay barnaamijkan sponsorka in dawladda Mareykanka ay ku dhawaaqi doonto marka maanta oo Khamiisa ayaa wasiirka arrimaha dibadda dawladda Mareykanka uu ku dhawaaqay waxa uu yiri barnaamijkan waxa uu ahaa mid guuleystay markii lagu eegay Afghanistan Ukraine iyo dad ka yimid Venezuela oo iyaguna program